dhaasin badan joogsato cida socotee shaqaynayni fadhiisato hadal iyo hunguri inaynu iswaafajinaa muhiima intiina dhamaysatay waa maasantii intaan dhamaysanna aynu ku dhaqsanno waay intaanay dhammaanin qaybtii tan ka horreysay waxaynu ku kala tagnay ballan waxaan idin ballan qaaday inaan idinla wadaagayo halka soo joojinayo qof 3 indhood leh waxaan idinka warramayaa horta 3 indhood sidoo qofku ku yeeshay kadib baynu isla eeganaa halka markuu qofku yimaado 3 indhoodna idinla wadaagayaa waxa uu dhashay isagoo 2 indhood leh waxa ilaahu abuuray 2 indhood dabeeta wuxuu go'aansaday inuu il saddexaad ku darsado ujeedada iyo waxa uu ku falayay iyo waxa uu kordhinayay waxa uu qabanayso amba waxaan tamaniyayaa oon malaynayaa inay ahaydun araga kororso labaad wax ku arkaysaa mid saddexaad ku darso si aad u aragto xigmadda rabbi isagoon ku xadgudbaynin haddana wuxuu door biday qofkaasi in indhihiisa labada mid saddexaad wax kula arko bal kaliya ma ahayn isagu arko laakiin dadka kalena waxa ishiisa saddexaad ee aragto uu la wadaago dabeeta yiraahdo labadii rabbi abuurayna waad ila aragtaan taana anigu damcayna ku darsadana waa ila arkaysaan intaanu taas samaynin waxa ugu horeysay aqoon kala duwan oo qofkaasi bartay waxa uu bartay darajada koobaad ee waxbarashada barashada cilmiga cadaaladda iyo sidoo kale ama waxa loo yaqaan criminal justice and policy science oo tiro yar tahay inta dalka bixisa waxa uu bartay sidoo kale darajada koobaad lafteedu mar labaad daraasaadka dunida iyo xidhiidhada caalamiga mar saddexaad buu qofkaasi bartay darajada labaad ee waxbarashada oo xidhiidhka caalamiga iyo diblomaasiyadda saddexdaa markuu aqoontiisii gaarsiiyay ayuu u hub qaatay inuu il saddexaad samaysto sidaan hore u soo sheegay waxa uu arkayo oo idin la arko waxaan jeclahay qofkaasi inay igula soo dhaweysaan intaydaan sacab igula soo dhaweynin aan idin sii xado isha saddexaad wuxuu ku arkay isha saddexaad waxa uu ku arkay buugga kaydeegan ila soo dhaweeyay nuur al-huda ali banfas nuura maadaama ay tahay ilaa imika intii aan xidhiidhinayay qofka xaawalaya ee ku jirta hadlayaasha caawa halkan aan ugu yeedhay waxaan jeclahay sida dadka qaar inaanan durtaba weydaaran nuura cali xasan aadan banfas garabkayga taagan tahay waan arkayaa ma laha ishii saddexaad wejiga sidee u leedahay se u samaysatay ideed la wadaagaysaa ku soo dhawowda aad baad u mahadsantay barkhad sida meel barwaaqa ah oo buura dhaadheer webi baal maraayo barbarkana daruuruhu kaga beegan yihiin magacaygu waa nuurul huda siduu barkhad sheegay waxaan ahay gabadh reer somaliland qadiyadda iyo jiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somaliland xajir ku ah habeenkan caawa waxaan jeclahay inaan idinla wadaago dhulkeenna anoo idinka tusaya isha kamaradayda balse intaanan u gelin safarka aanu ku tegayno dhulkeenna kala duwan waxaan jeclahay inaan idinla wadaago xidhiirkii koowaad ee na dhex maray aniga iyo kamaradda ama sidaan aniga iyo kamaraddu isku barannay anigoo aad u yaroo ilmo yara ayaa waxaan arkay kamaraddii koowaad waxaa haysan jiray allah u naxariistay aabbahay cali xasan aadan banfas waxa uu ahaa gabyaa macalinna uu ahaa laakiin dadka qaarkood may aqoon inuu sawir qaadana ahaa wuxuu ku sawiri jiray noloshayda iyo tiisa wakhtigaasi igumay dhalan xiise gaar oon u qabay kamaradda ama maan jeclaysan inaan ogaado waxay tahay kamaraddu iyo sida u shaqaysatoona muddo dheer kadib oo noqonaysa 2007 ayaa waxay igu dhashay dareen ah in anaguna sidii aan aabbahay ka arkay ugu kaydiyo noloshayda kooban kamarad yar intaan sawir ka qaado iyo muuqaal uga sameeyo waqtigaas kamaan fikirayn inaan sawir qaado ku noqon doono muddo kadib 3 sanadood ahayd
oo noqonaysa 7 sanadood iminka marka dib loo qaado 2011 ayaa waxaan safar ku tegay deegaanada Soomaaliland qaar ka mid ah oo muuqaalkaas waxa weeyaan sawirradii ugu horreeyay aan qaado waa Batalaale oo waqti casar liiqa waqtiga kadib waxaan ku baahiyay barta aan ku leeyahay Facebook-ga dad badan oo dadkeena abaa runtii jeclaystay muuqaaladii aan soo qaaday igana codsaday mar kasta oo muuqaal soo qaado inay aan la wadaago siday dalkii uga weeshadaan maxaa haddaba igu kalifay inaan sawir qaado noqdo sideen sawir qaado ku noqday waayo waqtigaas waxaan dhiganayba sidoo barkhad sheegayay criminal justice and police oo waxaan isku taxaluujinay inaan noqdo dambi baadhihii madax bannaan ee koobaad ee Soomaaliland yeelato laakiin taasi may dhicin waxaan dariiq kale maray sawir qaade waxaan u noqday waqtigaas waxaan baaray markaan arkay baahida dadkii u qabaan dhulkiina ogaadaan iyo deegaanadii kala duwanaa Soomaaliland bal hadda inuu jiro qof shaqada qabtay oo iga furta anigana maadaama aan qorshahayga waqtiga ahayn waan baaray qof local ah wadanka gudihiisa ku sugan dhulka Soomaaliland ururiyay oo sawir ama muuqaal ahaan ku ururiyay waxay igu dhalatay markii aan waayay inaan noqdo niraahdo noqo adigu qofka xilka madaxa urita bilow markii aan bilaabay caqabada igu horibi dabcan oo waxaan doonayay inaan la imaado shaqo ku cusub dhaqanka bulshadeeda gabadh inay sawir qaado noqoto waqtiga waxa jiray sawir qaadayaasha media ama saxaafadda iyo sawir qaadayaasha xafladaha gaarka ama special occasionska sida meherada xafladaha dhalashada ciidaha meelaha la tagay photo studioska may jiro qof deegaanada u safro oo sawir ka soo ururiyo oo markaas sida waxa ku qabta kadib baan sida runtii ku bilaabay haddaba Soomaalida iyo sawir qaadista ilaa anu gabadh Soomaaliya baan ahay bulshada Soomaaliyeed la nool bulshadu ay dhaqan leedahay wax cusubna anigan isagoo inaan ku soo darayo caqabad bay noqotay oo in ay arkaan gabadh inta meel taagan tahay kamarad sidata doonaysa inay sawir qaado wax cusub bay noqoto cid walba soo jiidasho ku samaysa qaarkood indhaha igu yara gubi jireen waxa dooda waa wax cusub oo kale runtii caqabadihii badankoodu waan soo dhaafay walow qaarkood aan oran karo way jiraan wali Soomaalidu waxay ahayd bulsho dhaqankeedu ku salaysnaa reer guuraanimo oo reer guuraaga ay ahaayeen waxay kala lahaayeen gender roles ama dhaqanku ragguna waxay qaban jireen oo lagu yaqaanay haweenkuna shaqooyin gaar ah ay qaban jireen oo lagu yaqaanay sida muuqaalka ka muuqato waa mid ka mid ah shaqooyinkii ragga ay u qaabilsanaayeen sida muuqaalka ku xiga ay muujinayso gabadh Soomaaliyeed shaqada laga dugeynaya waxay tahay dadkii sida ahaa ee gender role-kayga la iga doonayay ka ahaa ba waxay suuqa ku dhaxarkeen gabadh kamarad qoorta u sulan tahay waliba indhaaday ku darsato doonaysa dad badan oo soo jeeda inay sawir ka qaado ama intay gaari raacdo doonaysa inay degmo kala tagto ama magaalo kala tagto si ay sawir uga soo qaado iyagu may ogeyn sawirka aan anigu doonayo ujeedadan ka lahaa sida meel barwaaqa oo buura dhaadheer webi baal marayo barbarkana daruuruhu kaga beegan yihiin hees bay ahayd sida muuqaalka ka muuqatana bulshadii Soomaalida iyo nidii sharaxay cid ay ahayd waxay ahayd bulsho sawir qaadisteeda iyo photography-geeda ku hesha suugaanteeda dhexdeeda oo sida muuqaalka imika ka muuqata deegaankan shumux baa la yiraahdaa wuxuu ku yaala waqooyiga Sanaag idin sharix maayo sawirka idinkaga filan laakiin webi baal maraya laga yaabaa inaad isweydiisaan meeshan waterfall bay leedahay way iska noqon kartaa webiga Allah u naxariistay abahay baa maanso u lahaa oo uu tiriyay 96kii muddo hadda dhowr 20 sano ka hor noqonaysa oo wuxuu lahaa sirta nolosha ee taxan san ku neef la quuta mid siyaasadeed iyo mid kastoo sideeda bulsho wali ku sugan tahay sawir laga arkaa jira sugan oo muraayada la yiraahdo suugaan wuxuu sii adkeynayay dhaqanka Soomaaliga halka laga helo sawir qaadistiisa oo asuugaanta oo abwaanku kaga sii xariifsay deegaanka uu ku muujiyo iyadoo sawira markan yaraa baa waxaan maqli jiray
heesta ay khasrad daahir qaado sida dhamastu geedaha dhirtaa uga sarraysaad adiguna dhammaantood qayrka ku dhaafte allah u naxariista hooyadii baan ku idhi dhamastu waa maxay deetana waxay igu tiri waa geed dheer oo dhirta ka mida maan garanaynin khayaalkaygun baan kolba la safri jiro oo kolba geedkaan doono baan iska sawiran jiray laakiin waxaan dhamasta soo bartay 2016 gargaaro bari maraan u shaqo tegay oon habeen hoos seexday geedkaa dhamasta idiin muuqda isla suugaanteenu ku jirnaaye waxaan jecelahay inaan idinka dhergiyo suugaanteenu sidii qaniga ugu ahayd photography-ga ay isuna geeyayaan waxaan anigu wado inuu yahay waxii suugaanteenu samayn jirtay oo digital wall ama adduunka casriga ah uun la jaan qaadaya heesta hiba nuuri qaado maxay odhanaysaa waxaan filayaa inuu erayadeeda lahaa maxamed cali kaariye daalo tuselayo mayaytu mayarooryo isla beydka labaad muuqaalkani waa daalo isla beydka labaad ee heesta waxay odhanaysaa tabco ubax ka baxayo tigaadina hadhaysay teel daruurina tima sare ka fuushay waa sida muuqaalkan markaan halkaa dul joogay oo dawga tabca ah waxaan sawiranayay erayada iyo waxay hor yaallaa siday isaga warramayaan suugaanteenu waxay ahayd suugaanta sida photography-ga ma sawir qaadistu ugu dhex sugan tahay sawirku muxuu ahmiyad leeyahay waxaa laga yaabaa dadkeenu mararka qaarkood heerka uu ka gaadhay sawirku inaanay qiimo badan agteedu aanu ka samayn inay yidhaahdaan markay doonayaan qof dhaliilaan kaasi waa sawir ama heblaayadii sawiradda ahayd waxay ku tusaysaa mararka qaarkood sawirka halka la geeyo walow haddana aynu nahay bulshadii sawirka sida hore u ammaanaysay sawirku wuxuu ahmiyad leeyahay wuxuu waari karaa kumanaan sannadood taariikh buu reebaa dhigaal buu ka tagaa muuqaalkan waa laasgeel qoladii halkaa deganadee naga horreysay sawir bay nooga sii tageen si ay noogu xidhiidhaan cidday ahaayeen iyo wixii noloshooda ku weynaa iyo sirtii noloshooda wixii ku sugnaa kamaradaydu maxay u taagan tahay anugu maxaan wax u sawiraa waxaan wax u sawiraa to educate our people dadkeenna inaan ku baro the existence of certain significant archaeological and historical sites jiritaanka goobaha taariikhiga ah ee muhiimka ah ee badankeennu ama dadkeennu aanay badankoodu ka warhayn muuqaalkan hortiina ka muuqda waxa weeyaan Maduuna waa deegaan taariikhi ah oo dad muslimiin deganaayeen waa duleedka Cilaf weyn halka waxa ka muuqda burburkii deegaanka oo masaajidkiya masaajidkaasana markaa ii cadeeyay dad muslimiin deganaayeen Allahu a'lam goortay deganaayeen gooray tahay waxay u baahan tahay diraasad ama research lagu sameeyo si loo ogaado daadooda sawir qaadadeedu waxay u taagan tahay to encourage tourism locally and internationally inaan dhiirigeliyo dalxiiska gudaha iyo dibaddaba dalxiiska gudaha waxaan u dhiirigelinayaa markaan soo sawiro in dadka la wadaago in u sheego meeshay tahay in qaar kale oo karayaan intay tagaan booqdaan oo waliba soo sawiraan oo dadka u sheegaan waxay runtii dhiirigelinaysaa markasta oo meel kasta caan sii noqoto inaan u sheegno dadka sheeyaha inaan leenahay dhul qurux badan oo la booqan karo muuqaalkan hortiina waa jasiiradda Sacaadadiin oo oran karo waxaan ay sawir qaadayaashii ugu horeeyay ee sawir ka soo qaada 2014 marka laga tago TV-ga qaranka oo 2007 fiidiyowgii ugu horeeyay aan ka daawaday aniga lafteedii aan ku ogaaday jiritaanka Sacaadadiin sawir qaadisteedu waxay u taagan tahay advocating of archaeological and historical sites protection and preservation in la ilaaliyo lana dayactiro goobaha taariikhiga iyo archaeologiga aynu leenahay cidifka ayar ee taagan idin muuqdaa wuxuu ka sii taagan yahay masaajidkii qiblateynka qibladii kala weyduuntay inta kalena waxa ka dambeeya dhisme xarunta gobolku leedahay subax walba loo sii shaqo tagaa ciyaalka xaafaddu way tagaa ku soo ciyaaraan habeenii maalin qof kastoo siilactiga waxaan weydiiyay intii may taagneed wali waayo baaqaan gudbiyay muu gaadhin dadkii ficil ka qaban lahaa
maalin maalmaha ka mid ah haddii inaan ka horteginna way naga dhici doontaayo waxay noqon doontaa halkaa beri wey wax ahaan jireen waxaa runtii aada u xanuun kulul marka waxaad u dagaalamayso runtii badanka dadkaagu aanay kula fahamsanayn kan waa dhagax ka mid ah aasaarta gaar ahaan wuxuu ka mid yahay aasaartii magaalada Hargeysa lahayd waa dhagaxa kaliya ee Hargeysa gudaheeda marka la yiraahdo ku soo hadhay wuxuu ku yaala galbeedka magaalada balood buu ku yaalaa baloodku ku yaala qof baale oo yiraahna loo sheeganaya maalin maalmaha ka mid ah baan sawir ka soo qaaday oo sawirka buugga ku jira halka koonaha uu ka jabay yahay muu lahayn maalinta laakiin sanad kadib oo noqonaysa 2017 sanadkiina dhaafay October ayaan ku noqday waxaan arkay baalkii dhagaxii oo cagaf la geliyay oo qofkii meesha lahaa uu doonayay inuu iska tuuro dee dhagaxan aad arkaysan hoostiisa far baa ku qoran madow oo taariikho hore ka taagan welina aan la macnayn waxay ahayd iyo site-kaasi wuxuu ahaa dhagaxii markaan arkay ayaa waxaan arkay haddana sheeko kale cajiiba oo dhagaxii soo hadhay kii la jaarka ahaa oo dab lagu shidayo oo laga dhagaxaysanayo oo qoliyaha guryaha dhisaa ay site-ka intii kale buu dhameeyeen kan jaarkiisa isaga ku xigeen ay ku sii dareen ninkii dabka ku shiday waan u tagay waxaan ku dhina adeer dabka ka joojiyo maanta loodkii kaaga soo bixinaan lacagtiisa waa kan qofkii baloodka lahaa baan doonanayaa inta yiisi hakyo 2 cisho ama 3 cisho iga warisiguntan qofkii ka gaadhayo alxamdulillah waan gaadhay qofkii baloodka lahaa waxaan ku dhaadeer waxaan doonayaa baloodkaaga danka milihi dhagaxaasoo hantida guud u taagan buugaygana qayb ka mid ah dunidana aynu sheegno inaynu leenahay taariikhda baan doonaya inaan badbaadiye anu suraacno nootaayada oo baloodka kuguma hayste ii ogolow inaan deer ku xogaana maaliyada deerka u doonanaye waan ka soo fakarayaa buu igu yiri maalin kadib baan ku noqday kii kale gubayna waan yara sasabayay deetana wuxuu igu yiri maalintii dambe baloodkayga haddaan kugu agarko adiga oo bixi doona waxaan la xiriiray ilaa halkii ugu sareysay ee naslaha dawladda waxba laga qabanayaa ma garanayo imika in u galbaday in kale dhaweed kama anaag wareegin dadkeenu sidaas aan ugu baraarugsanayn waxaanu ka hadlaynay waxaan ugu doodayno waxay yihiin kani waa qalcadda taleex Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan iyo hooygii daraawiishta waxaan tagay sanadkiina dhaafay December waa run oo sawirada jiray hore laga qaaday site-ka ama goobta laakiin waxa aniga aadka ii radamqay waxay ahayd haddaad sawirka si fiican u arkaysaan deegaanka siduu socday wuxuu soo galay qalcadda dusheeda uu ku soo siqayaa markastuu dhismi soo siqana ka horaa burburaya haddaan xayndaab loo sameeyno taariikhda la qabanna iyaduna waxay noqon doontaa waxba halka ahaan jiray intaan wax sawirayay kaliya kumaan mashquulsanayn dhirta geedaha buuraha iyo waxay Soomaaliland leedahay dad baan iyagana la kulmay nolosheedina saameeyay aniguna noloshooda saameeyay qaarkood baan oran karaa labada caruur ee muuqaalkooda idin muuqdo waxay haayeen Khadiira oo 16 jir ah iyo Yaxya oo 12 jir ah laba caruur oo aqligoodu aad u cajiib ah intelligence-kooda iyo garaadkooduna aad u sareeyay anigana markaan meesha joogay caawin jiray runtii laakiin dhibka iyaga haysta waxay ahayd aad bay uga yar yihiin da'dooda jir ahaan deegaankooda marka waxay isleeg iyagii waxay ku adeeganayeen oo waxay isleeg jirkaankay biyaha ku doonanayaan marka caruurta dhibka haysta wuxuu ahaa in garaadkoodii aanay haysan environment lagaga faa'iideysanayo laakiin physically loo arkay inay ceeb ku yihiin bulshada aan ka sii socdo maxay kamaradaadu soo saartay kamaradaadu waxay soo saartay xul metelaya dhulka Somaliland oo aan ka dhigay buugga kayd